innaga marka laga hadlayo Hargeysa ahaan waa inaynu dhammaan dhinacyada ka istaagnaa oo inuu barbar istaagnaa sidii loo fududeyn lahaa beebkaasi magaalada inuu wada dhex maro oo magaalada gebi ahaanba la sameeyo iyadoo la ilaalinayo wixii muxuu ahaa ay dhibaato ku dhacaysa dadweynahana waxaan leeyahay shacbigu inay diyaar garoobaan oo gali lahaa dadka Hargeysana ay biyo wada heli lahaayeen in badan baynu ka cabanaynay biyo la'aan maanta hadii layna siiyay oo laynoo dhameeyay hawshii biyaha oo ay nasiiyeen dadkaasi dadkana ma had baynu celinaynaa mar haddii biyihii ilaahay inoo keenay oo niman hagarli inoo wadaan waxa inaga inagu doowa waxa la leeyahay meesha wax ku shuban lahaydeen iyo halkii beebka biyuhu idin mari lahaa haddaan halkaa qof wal oo reer Hargeysiiba isgarab taagin oo beeb walba la ilaalin oo ciidda indhaha idinkaga duulaysa iyo turunturada habeenkii aan loo dul qaadan oo dawladda hoose iyo cidda kasta ay qusayso aan lala garab gelin oo maareeyaa biyaha iyo meeyarkaba lala shaqaynin de wixii aynu ku hadlaynay baa la oranayaa ma buu jirin oo kale halka ay barkada si ka qodan tahay maartay gacan libaax gacan libaax waan leeyahay de laba la isku heli maayo inuu biyana aynu ku dacwinayno ana biyo ma helo oo xaafadaha qaar tuhno marka la yiraahdo biyo way soo socdaan carqalada inaga hor yimaadaan labada la isla heli maaye carqalada hal daayaan leh dadweynuhu waa la isxantaa waxay u yar eeg tahay xaafadahaas waa kuwii biyaha hore yar heli jiray oo manaan biyo ma haya ayaan u qabaa labadii xaafadood biyaha u baahnaa waxoodii bay diyaarsadeen dadweynaha anagu kolley anu Koodbur baan ka wakiil ka ahay anagu hawsheeda dhinacayaga as government ama dawladahan waa ka soo baxayn waxa si loo baahanyahay dhinaca community-ga ama dadka bulshada inay iyaguna inala socdaan in badan baynu cabanay oo Hargeysa biyalaan ka cabanay maanta diyaar baynu yihiin waynu soo aragnay shalay dhulkii waynu soo maray waxaynu u baahanay inaynu garbaha iska taagno mashruucaasi inuu noqdo mashruuc fula oo sidiisa u fula oo ay arkaan inay wada shaqeynayaan hay'adaha dawladda ee ka shaqeynaya iyo dadka dhamiyahantoodba in adduunyadu ay eegayso waliba gaar ahaan ay Germany eegayso oo ay kordhin karaan marka waxa muhiim ah inaynu tusno inay naga go'an tahay inaynu inaguna wada shaqeynteena hadii tamar dawladdu ay gelin karto waa halkayga xagga have come here as a delegation with quite a number of delegates from KFW to assess the project mashruuc balaaran markii la eegay mashaariicda la soo fuliyay hal mashruuc waa mashruuc runtii aad u weyn mashaariicda laga soo fuliyay xagga biyahana runtii wuxuu noqonayaa kii ugu weynaa marka xagga laga eego magaalada gudaheedana laga shaqeynaya runtii arin ma noqonayso fudud oo Hargeysa waad garanaysaa intay laag tahay si u balaaran tahay runtii oo hawl balaaran bay noo taala dawladahan iyo shacab ahaanba laakiin waxa ka weyn mashruucan maanta dhamaystirmo qiimuhu ku soo kordhinay shacabkeena adeed yani odayaasha reer Hargeysa iyo waxgaradka reer Hargeysa iyo hay'adaha dawladda ugu horeysa dawladda hoose Hargeysa iyo wakaalada biyaha iyo wasaaradda kale la shaqeeya we as Somalilanders or as the representatives of Somaliland institutions we do feel that we have received a very important friend. You know, Somaliland has been, busy in nation building for almost 3 decades now, including, democratization process, which has been, very unique in the African region. Of course, we have had a number of presidents, of course, leave in office.